tahay oo buugaagooda taariikhda ay ku qoran tahay kolon halkan uga mahad celinayaa dawladihii Somaliland in badan iyadoo la isku imaaraadka Carabta Taiwan Ingiriiska Mareykanka ku dhiiratay go'aan runtii loo baahnaa dawladda Israa'iil iyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyadoo maanta taariikhdu tahay 17 bisha December 2025 marka hore ilaahay baa mahadle inagu simay Somaliland oo dawladii koobaad ee caalamka ka tirsanay aqoonsato mar labaadka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan guud iyo dibadba qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa kaloo hambalyeynaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinta qaranka cid kasta oo runtii arinta ictiraafka ee dawladii koobaad oo ah dawladda Israa'iil ay u aqoonsatay Somaliland oo runtii xaq ay lahayd oo 35 sano ay ku taagnayd oo dawladnimadeedii 1960kii ka luntay ay dib u la soo noqdeen 1991kii dadka reer Somaliland waxay muujiyeen bisayl waxay muujiyeen adkaysi waxay muujiyeen iyadoo aan caawimo ka helin adduunyada kale inay dawlad runtii qaran ah oo 34 sano shaqeynaysay ay sameystaan maanta ayaa dagaalka diblomaasiyadda ee ugu weyn nagu bilaabmaya waxaan rajeynayaa dawladaha kale ee Afrika iyo adduunyada kaleba inay ka garowdo qadiyadda dadka reer Somaliland ee 34 jirsatay ee maanta dawladii koobaad oo ah dawladda Israa'iil ay ku dhiiratay waxa kale oo rajeynayaa dawlado kale oo runtii dawladaha nidaamka dawladnimada wax ka fahansan ay qadiyadda Somaliland iyo qarannimadeeda ka garaabaan oo dadkan ay garowshaysiiyaan oo runtii adkaysi iyo samir iyo dulqaad iyo isu tashi ay iyagu ay maanta system iyo nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya oo madaxweynayaashooda iyo golayaashooda lagu doorto ay sameysteen oo tusaale u ah gobolka Geeska Afrika oo tusaale loogu soo qaato marka runtii waxaan hambaliyada la wadaagayaa shacabkayga Jamhuuriyadda Somaliland gudaha iyo dibaddaba arinta qarannimada siyaasadda arrimaha dibadda ictiraafka amniga iyo dhaqaalaha mucaarad iyo muxaafid moon ka midaysanahay waxaan halkan u joognaa inaanu runtii qadiyadaasi aanu taageerno oo shacabkayga hambaliyada la wadaagno oo xukuumadda iyo madaxweynaha aanu garab taaganahay oo aanu ku garab taaganahay dadaalka qadiyada lagaga meel dhalinayo waxa kaloo maanta golaha wakiiladu soo saaray qaraar ku taageerayo aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee dawladda Israa'iil oo aqoonsatay oo aanu nahay cid kasto abaal loo gashaa dad runtii abaalka guda oo u mahadnaqi kara oo meel ay ugu qoran tahay oo buugaagooda taariikhda ay ku qoran tahay waxa kaloo halkan uga mahad celinayaa dawladihii Somaliland in badan iyadoo la iska dhintirayo saaxiibadii waqtiga adag soo garab istaagay sida dawladda Imaaraadka Carabta Taiwan Ingiriiska Mareykanka Ethiopia iyo cid kasta oo Somaliland soo garab istaagtay South Africa Kenya iyo dalalkii kale la soo shaqeeyay iyo ururada caalamiga ee Somaliland la soo shaqeeyay ugu dambeyntii waxaan halkan kelmad dardaaran uga jeedinayaa shacabka gubta ee xariirta ee adkaysiga badan ee reer Somaliland oo aan leenahay ciidanka ammaanka ay la shaqeyno qof kastaaba ha ka shaqeeyo inaynu ilaalino nabadgelyada cadow badan baa runtii nagu soo kordhay go'aanka nagu soo kordhay iyo qadiyada maanta garooshii koobaad ee dawladii koobaad ay aqoonsatay waxay runtii muujinaysaa inay keen doonto culays badan waxa kale oo halkan uga mahad celinaya dawladda Israa'iil oo ku dhiiratay go'aan runtii loo baahnaa dawladda Israa'iil iyo madaxdeeduna runtii waxay ka garaabeen qadiyad dadkan ay xaq u lahaayeen oo in badan ay sugayeen waxaan rajeynayaa dawlado kale inay ku dhiiran karaan aad iyo aad baa mahadsantiin